qofka muuminkii inuu ducooyinka barto gabadha muuminadii inay ducooyinka barata nebiga calayhi salaatu wassalaam xilli walba duca ayay leedahay tallaabo kastoo ood qaadayso duca ayaa loogu talagalay xilli walba oo joogto duca ayaa laga rabaa ducadaas ilaahay ajar buu kugu qorayaa ilaahayna wixii aad kaga magangashay ayuu kaa magangelinayaa wixii aad ku doontay eed ilaahay kaga dalabtayna ilaahay wuu ku siinayaa subxaanahu wa tacaala caawa ducada aan qaadanayna waxa weeyaan oo darsigii saddexaad ah waxa weeye ducada uu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam bismika allaahuma amuutu wa axyaa nebigeenu calayhi salaatu wassalaam wuxuu dhihi jiray marka uu seexanayo ducooyin dhowr ayuu akhrisan jiray waxaa ka mid aha ducooyinka uu akhrisan jiray suuratu falaq iyo suuratu nnaas ayuu nebigu saddex jeer isku akhrin jiray suuratu likhlaasna iyadana wuu akhrisan jiray nebigu calayhi salaatu wassalaam welibana suuratu nnaas iyo suuratu lfalaq nebigu markuu akhristo gacmaha intuu ugu tufo oo candhuuftiisa ku afuufo ayuu jidhka oo dhan nebigu mari jiray aayad kursidana nebigu wuu akhrisan jiray calayhi salaatu wassalaam laakiin dadku inta badan way yaqaanaan macawadateynka iyo ikhlaas suuratu likhlaas iyo in la akhristo aayad kursiga laakiin ducooyinkan inta badan dadku aqoonin caawa marka labada duco aynu qaadanayna waxa weeyaan waa ducada koobaad nebigu wuxuu dhihi jiray bismika allaahumma amuutu wa axyaa bismika allaahumma amuutu wa axyaa ilaahu magacaaga ayaan ku dhimanayaa magacaaga ayaana ku noolaanayaa bismika allaahumma amuutu wa axyaa bismika allow magacaaga ayaan amuutu ku dhimanayaa oo qofku markuu seexanaya waa dhimanaya naftaa ka baxaysa naftii baa kusoo laabanaysa xilliga uu soo baraarugo ee uu soo kacayo marka nebigu wuxuu dhihi jiray bismika allaahumma amuutu wa axyaa ilaahu magacaaga ayaan ku dhimanayaa kuna noolaanayaa oon ku soo kici doonaa haddaad igu tala gashay inaan soo kaco ducadaa nebigeenu wuu akhrisan jiray hurdaduna inay geeri tahay ilaahay qur-aankiisa xataa wuu inoogu sheegay oo qur'aanka aayado laga qaadanaya ayaa jira qofku 2 jeer ayuu dhintaa geerida koobaad waa midda hurdada ee habeen walba iyo xilli walba qofku seexda uu geeriyoodo dadka qaar inay geeri tahay waxaad ku garanaysaa dadka qaarkii caawa markay seexdaan berri maba soo kacayaan hurdadaas say naftii uga baxday ee uga tagtay dib damba uguma soo laabanayso marka waa geerida labaadna waa midda ina sugaysa ee qof waliba uu mari doono weeyaan haddaba walaalayaal ducada labaad ee nebigeenu uu akhrisan jiray markuu seexanaya waxaa ka mid a innagana laynaga raba inaanu ku dayanno aynu akhrisanno waa ducada uu nebigu dhihi jiray allaahuma qinii cadaabaka yowma tubcasu cibaadaka allaahuma allah yow qinii ilaahu iga ilaali cadaabaka cadaabkaaga waa wax ilaahay laga magan galo cadaabka aakhira ilaahay laga magan galo ka adduunka in ilaahay laga magan galo ka qabriga in ilaahay laga magan galo nebigu marka wuxuu dhihi jiray isagoo nebi ilaahay ah isagoo ilaahay dembigiisi hor iyo kiisii dambaba dhaafay mar walba wuxuu habeen walba markuu sii seexanayo ku ducaysanayay ilaan xilliga la seexanayo geeri baad fooda saartay qofku markuu raaxada usii kacayo ee uu isleeyahay hurdadu waa raaxee seexa uu isleeyahay wuxuu u diyaar garoobayaa geeri laakiin innagu aynu la qabsanno geeri uma naqaano walidaalika nebigeennu oo dembigiisii hor iyo dembigiisii dambaba la dhaafay ilaahay wuxuu ka magangeli jiray cadaab marka uu seexanayo leanna xilli geeri yuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uuna hubin naftiisu inay soo kici karto ayuu u diyaar garoobay markaasuu nebigeennu wuxuu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam allaahuma qinii cadaabaka allow cadaabkaaga iga dhowr oo iga ilaali yowma tubcasu cibaadaka maalinka addoommadaada la soo saari doono ilaahayow cadaabkaaga iga ilaali ayuu dhihi jiray nebigeennu calayhi salaatu wasalaam innagana waxaa inoo sunno ah nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ducadu akhrisan jiray inaan mar walba akhrisanno xilligii uu nebigu akhrisan jirnana aan akhrisanno nebigu ducada wuxuu akhrisan jiray cadadka iyo tirada uu akhrisan jiray waxay ahayd 3 jeer buu nebigu akhrisan jiray habeenkii uu dhihi jiray allaahuma qinii cadaabaka yowma tubcasu cibaadaka ducadii labaadna waxay ahayd ee nebigu uu akhrisan jiray ducadaan soo sheegnay bismika allaahuma amuutu wa axyaa allow magacaaga ayaan ku dhimanayaa magacaaga ayaana ku noolaanayaa ayuu dhihi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaa duca waa inaynu xifdino gabdhaha walaalada ee ay dhegaysan doona wiilasha walaalada ee ay dhegaysan doonow dhammaantiinba iyo aniga naftaydaba waxaan idinku baraarujinayaa oon isku baraarujinaynaa inaynu ducooyinka akhrisanno ducooyinka ood akhrisato kow ajar baad ka heli oo ilaahay ajar buu kaa siinayaa halkii ajarna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kuu sii laalaabayaa 10 jeer baa laguu sii laalaabi haddana waa laguu sii laalaabi ilaa 100 ay ka gaadho kumaankum ilaa ay ka gaadho ajarkaa waa laguu sii laalaabi waxaa laga yaabaa inuu noqdo ajarkaasi ajarkii miisaanka qiyaamada kuu buuxin doona ee khayrka miisaankiisa kuu buuxin lahaa inuu noqda laga yaabaa waa kow arrinta labaad ay kuu tari waa ilaahay wixii aad kaga magan gashay oo cadaab ah inuu ilaahay kaaga badbaadiyo ilaahay wixii aad kaga magan gashay oo dhan ilaahay wuu kaaga badbaadinayaa waa faa'iidada labaad dhibaatooyinkii aad ka magan gashay ilaahay oo cadaabku ka mid yahay ayuu ilaahay kaaga badbaadin
faa'iidada saddexaad ay leedahay ducadu waxa weeyaan ilaahay wixii aad kaga dalabtayna wuu kugu siinayaa oo ducada wixii ilaahay aad kaga dalabtay oo dhan oo naxariistiisa iyo jannadiisa iyo ridihiisa iyo khayrka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kugu siinayaa waa arrinta saddexaad eed ka faa'iidaysanayso arrinta afraad eed ka faa'iidaysanayso waxa weeye التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إن النبي محمد كضيته نبي محمد والله قضيته فإذا ما لقى هلا ها ولا هلا نبي محمد إن السنة ديسي ودديسي رقم كيسي إن تكسي فوضو أجر بالغ هلا خير بالغ هلا وناك بالغ هلا إلهي وكوليه القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وحاطر هذا النبي محمد وقل إن كنتم تحبون الله هداتهم كوا إلهي جعل وإلهي أدرميسنتهين وإلهي أدعابدان وإلهي ربي إنه يهي أدقرسنتهين فاتبعوني أنا قاعد صرعة النبي محمد الله صرعه هدي النبي محمد للراعي وايو إلهي جعل كالله قبه رميت للرميسين يهي بين قنيصة مركا إلهي جعل كيسي حب كيسا وحلقوها لا نبي محمد راعي تام كيسا دعاء أود برته أود حفظيسو أود إلاليسو أود أغرسطو oo xilligii loogu talagalay duco kastaba aad akhrisatona waa nebiga raacitaankiisii haddaad nebiga raacdana ilaahay baad jeclaatay nebi maxamed raacitaankiisa waxay daliil u tahay inaad ilaahay jeceshahay subxaanahu wa tacaala waa arrinta faa'iidada afraad ee laga helo faa'iidada shanaad ee laga helo isla midda inoo guda gashay waxa weeyaan qofka ducooyinkan barta ee nebi maxamed ku raaca dhaqankiisii iyo inuu isagu sameeyey ku raaca ilaahay buu jeclaaday qofkaasi waxa aynu ogaanaynaa qofkaasi rabbigiisii abuurtay inuu jecel yahay محا دليل آيات القرآن كابا ودليل أو إلهي ليه سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وكي لها شاعرك لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مضيع لو كان حبك صادقا حبك إيا جعلك آت شيغانيس النبي محمد إن أوقبت الشيغانيسو هدو رنيحي لأطعته نبي قد يلي لهي والنبي قد سيلو يلا inaad sunnadiisii ku dhaqanto inaad qur'aanka kariimka ah ku dhaqanto inaad sunnadii nebi maxamed ku dhaqanto inaad bidcada iska ilaaliso inay wixii xumaan aad iska ilaaliso wuxuu nebi maxamed ina farayna aan samayno wuxuu nebi maxamed inaga reebayna aan ka tagno maxaa yeelay ina almuxiba liman yuxibu mudiicun qofka uu jecel yahay wuu yeelaa oo wuu adeecaa oo wuu raacaa marka nebi maxamed inaynu raacno waxaa daliil u ah adkaarta kow نبي محمد عليه الصلاة والسلام أذكرته إن بري أو إلى أغرسته أو يسوي أغرسن شري إنه قل دائمنا وإنه أغرسنا أيلا إن جربا وأريد فائدة كلي أتكلم سويا إلى فوائد إيه فوائد كصيف ربضنبا والله جرا والله هذا حقيقة وحكلون كل شيء جيا مركز تقعد أذكرته حل والبلاغو ترى جلي أغرسته مثلا قولي مركز سوق ليس ذكري بلاغو ترى جلي هذا أغرسته قولي مركز كبحث ذكري بلاغو ترى جلي هذا أغرسته suuqa markaad galayso dikri baa loogu talagalay iyo duca loogu talagalay haddaad akhrisato suuqa markaad ku dhex jirto duca loogu talagalay ducada haddaad akhrisato markaad ka soo baxayso duca loogu talagalay ducada haddaad akhrisato markaad masaajidka galayso duca loogu talagalay ducada haddaad akhrisato markaad masaajidka ka soo baxayso duca loogu talagalay ducada haddaad akhrisato musqusha markaad galayso duca loogu talagalay ducadii haddaad ku gasho musqusha markii laga soo baxayo duca loogu talagalay ducada haddii aad akhrisato markaad seexanayso duca loogu talagalay inaad akhrisato ducada markaad akhrisato markii aad hurdada ka soo kacdo duca loogu talagalay ducadii haddaad akhrisato markaad reerkaagii la kulmayso ood gabar guursato ood xaas guursato ood la kulanto marka kugu horayso duca loogu talagalay ducadii haddaad akhrisato dadku markii arooska ka soo qayb galaan duca loogu talagalay inay ugu duceeyaan dadkii arooska ahaa ducadii haddii la akhriyo markaad reerkaaga galmi iyo xaas ka dhiganayso duca loogu talagalay gabadh iyo wiilkiiba ducadii hadday akhriyaan maxaa laga helayaa oo faa'iida waxaad ka helaysaa kulli ilaahay arsaaqadu kugu furaya wixii ilaahay aad ka magan gashay buu ilaahay kaa badbaadinayaa wixii ilaahay aad ka dalabtay buu ku siinayaa wax walba ilaahay kuu dhammaystirayaa waana lagaa dareemi noloshaadana waa lagaa dareemi bal xaqiiqatan wax yar baan idin tusinayaa dadka ahlu khayrka ah ee dikriga iyo adkaarta xifdiya ee adkaarta akhrista ee sunnada nebi maxamed ku dhaqma ee dikriga xifdiya ee ducooyinka ilaaliya wejigooda nuur baa ka muuqda dhaqaalahoodu wuu fiican yahay ninkii culamada waxaad arkaysaa ee ducadan daa'imay ee ducooyinka akhrista ee sunnada nebi maxamed tadbiiqiya ee ku dhaqma waxaad arkaysaa isagoo adduunya aan ka fikrino ilaahay ugu keenay meeshii uu joogayba rafaadba isagoon u soo marin waxaad arkaysaa isagoo nuurayaad arkaysaa isagoo dadku wada jecel yihiin baad arkaysaa xubbi iyo wanaag iyo dadku inay ku jeclaadaan iyo magacaagu inuu meel sare gaaro ayaa lagu gaaraa walaalayaal marka waxaan idin dardaarmayaa labadaa duca waa inuu xifdino waa labadee duco
ولبدي دعاء نبي جينو صدح جميل والبأقري جري ونبي جينو دي جري صلى الله عليه وسلم نبي جينو دي جري صلى الله عليه وسلم بسمك اللهم أموت وأحيا بسمك اللهم أموت وأحيا ودعاء كوبد إله مقعاق أيام كل من يكون نولانا دعاء الله بنا محي أهيد نبي جينو دي جري اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك إله عذابك إيجا إلالي مالك أضمد الله صوصاري دونه لبدا دعاء وإنه أرسلنا حبيب والبمركن السيح علينا وحاشك كتير وحنا النبي إلهي كما نقلي إنك أوقبه بدنه إنه إلهي إنه قصير سبحانه وتعالى marka walaalayaal aan ku dadaalno adkaarta iyo ducooyinka waxa kale oo habeenkii la akhristo markaas ay xanayso suuratul ikhlaas iyo suuratul naas iyo suuratul falaq nabigana wuu akhrisan jiray mid walba 3 jeer markaasuu jirkiisana marin jiray nabiga kaleey salaatu wasalaam intuu ku afuufo gacmihiisa jirkiisa meel kastoo gacmuhu gaaraan buu marin jiray sixir iyo il iyo wixii aad ka cabsanayso dhanna ilaahay uu kaaga maanta ku soo raacay uu kaaga xayoobinaya waxa kale oo akhrisan jiray nabiga kaleey salaatu wasalaam suuratul mulk waxa kale nabigeenu aqrisan jiray aayatul kursi waxa kale nabigeenu aqrisan jiray marka uu seexanayo suuratul kaafiruun oo nabigeenu wuxuu yiri walibana suuratul kaafiruun qofka aqrista ilaahay wuxuu haduu saa ku dhintay habeenka isagoo bari shirki ka ah ayuu geeriyoonaya qofkaasi marka inaad xilliga dhiman lahayd hurdadan aad seexatay inay tii ugu dambeysay baa laga yaabaa ha ka tagin si adoo shirki bari ka ah aad u dhibato oo u geeriyooto oo tii ilaahay kuugu timaado maalina ha ka tagin suuratul kaafiruun oo aqriso si ilaahay kaaga badbaadiyo laana shirku waa wax dembi oo ilaahay laga galo waxa ugu adag weeye marka ducadaas dhinacyaha waan idin soo saari oo dhankan waan idin soo saari iyo labada dhinacba waan idin soo saari hoosna waan idin dhigayaa fiidiyowga hoostiisana waan idin dhigi ka faa'iidaysi wacan walaalayaal